fariintaan dirayna waxa weeye muslimiinta guud ahaan muslimiinta waxaa laga rabaa inay dad walaalaa noqdaan inama almu'minuuna ikhwa weeye dad walaalaa weeye walaalaha xaalkooduna waxaa weeye inay xumidana iska ilaaliyaan wanaaggana isugu hiliyaan watacaawanu cala albiri waataqwa muslimiinta taasaan faraynaa u soo jeedinaynaa gaar ahaan dadka soomaaliyeed waxaan u soo jeedinaynaa waxbaa si ka ah inay walaaloobaan diinta islaamka ay haystaan ku dheganaadaan gaar ahaan gobolka mudug dadka ku nool oo walaalaha ah oo maalmahan shaqaaqooyinku jireen waxaan leenahay ilaahayna abuurta ka cabsada fitnada iyo dhibtaas iska daaya kii ka qayb qaataa waa ku dembaabahayaa kii ku dhintaa waa ku dembaabahayaa kii ku lug laha waa ku dembaabayaa waxaan dembiga ahayn oo laga helayo aakhiriyo adduun midna ma jirto in lagu dembaabo oo lagu aakhiro waayo maahe waan wanaag laga helayn markhaati baana ka tihiin dagaalka la isdagaalayo wuxuu socdaa muddo dheer ilaa 30 sano waa socdaa gobolka mudug dagaalada ka socdaa dowladdii waagay dhacday ilaa dowladdii intaysan dhicin ka hor dagaallada iska socday wax laga saakan qof odhanaya faa'iidaa laga helay iyo natiija ka timid ma jirto dadka walaalaha waa degan meesha ay deganayeen qolo kasta meelaho carradeedii iska deganta dadkii un baa leeday gaalkacyaa weli la wada degan yahay gacal laguma kala tegin gobolka mudug baa weli la degan yahay laguma kala tegin sidii baa loo wada degan yahay marka xikmad iyo caqli inta loo laabto war haddii maalintii dagaalku bilowday ilaa maanta ka dhexla gaalkacya sidii aan wada degannahay oo wax ka yimid dagaalkii aysan jirinin war nabadba waa ku wada deganaan karnaa walaalana waa ku noqon karnaa shida la'aanna waa ku wada joogi karnaaye saa inta loo fakero caqligaa ha lagu fakero waa la soo arkay dagaal dhibaato waa la soo arkay diintuna waa ka hadashay caqli ahaan iyo baraatikal ahaanna hadda waa inoo ka muuqataa wax dagaal laga keenayo oo natiija oo aakhira iyo adduunyaa midna ma jirto dagaal muslim ka dhexeeya waa cadaab iyo fidno kii ku dhintaana waa ku dhex dhintay oo dagaal fidnuu ku dhintay kii ka qayb qaatana dagaal fidnuu ka qayb qaata kii ku raaliyana fidno iyo baluu raadli ku noqdo marka dadka waxaan amraynaa dhammaanteen waa joojin karnaa dagaalka iyo dhibtaasi inta ilaahay laga boqo gacmaha la isqabsado gaalkacyo iyo gobolka mudug iyo soomaaliya ummadda dalka waa ka badan tahay waana deeqdaaye nabadgelyoay ku deeqdaa iyo khayre nabadgelyadana aan ka shaqayno aana walaalowno ilaahayna ha laga boqo adduunkan waa laga tegaya aakhira la tegaya qof kastana wuxuu shaqaystay baa hor yaalla oo u tegaya maalinta qiyaamaha wabillahi tawfiiq